xarunta maamulka gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle saaka subaxnimadii hore waxaa ka dhacay shir balaaran oo isugu yimaadeen xubnaha golaha Cuqaasha waxaana shirkaas ka soo qayb galay maamulka gobolka Cayn kan degmada Xildhibaano waxaana shirkan gudoominayay gudoomiyaha gobolka Cayn Axmed Carab oo isagu dhawaan ku soo laabtay magaalada Buuhoodle safar kaga maqnaa magaalada Garowe caasimada dowlad goboleedka Puntland gudoomiyaha ayaa Cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn uga warbixiyay safarku kuga maqnaa magaalada Buuhoodle waa laba qodob waxaan ka hadlayaa ee suuqi yeernay waa ku mahadsantiin sida aad noo soo ajiibteen daliilni iyo hawlihiini aad uga timaadeen taaynu isugu nimidna waa runtii gobolka iyo guud waxaan ka hadlayaa laba qodob baan la tagay markii halkan aynu ku wada shirnay ee wax isweydiinay ee wada hadalay ee aynu istusnay gobolkeenu inuu sida ka bedelo oo amnigiisa xasilino oo kala dambayn keeno oo horumar sameysano dhaqaale sameysano sidaas aynu isku ogeeyno wada qaadanay haday yihiin odayada haday yihiin isimada haday yihiin hooyooyinka haday yihiin dhalinyarada arrinka wax ka hor yimaada waqtiyada aan ka wada hadlaynay ee dadkaan wacyi gelinay ma jirin sidaan ku tagayaan dawladii aan ka tirsanaa ma aaday qodobkaas oo si aan dhaqaale soo helo aan u kicina hawsha dawladii waa la kulmay qoraal baan sameynay waa hordhignay nalaguma caaqin qoraalkii iyo wixii aan soo hordhignay aad iyo aad qodobka lagu buuxay laakiin qorshahan la geynay hal la qaato hasaatee nalagaba waa la bedelay oo dawladda qorshe kala dhigatay gobolkii waa la degayaa hadii lahayd wasaaradda maaliyadda wasaaradda gudaha wasaaradda hawlaha guud wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada iyo taliyayaasha ciidamada haday bilis iyo haday daraawishiba waa la imanaya qorshaha waxa loo sameeyay in gobolkii la kiciyo oo aan hal mar gacanta saarno oo la taago si uu gobolada kale u soo gaaro qorshahaas waa lagu qabanaya qorshihiisa waa diyaar qarashkiisina waa loo diyaariyay waa la imanaya sidaas aad ku warbixinaysaa oo naga sii horeysaa ballanka gudoomiyaha gobolka Cayn sidoo kale wuxuu ka hadlay ciidamo laga qorayo gudaha magaalada Buuhoodle oo uu sheegay in maamulkiisu aanu wax wara ka hayn isla markaana waxa uu sheegay in aanay u dul qaadan doonin ciidamo laga qorayo gudaha magaalada Buuhoodle waxaana uu soo bandhigay waxgaradka Buuhoodle inay degdeg arrintaasi wax uga qabtaan haddii kale maamulkiisu uusan gacmaha ka lama doonin waa sida hadalka u dhigay 700 milyan oo la soo keenay oo inta leego dawladda wax siin karta oo mas'uul karta oo meesheeda ku hayn karta أنا بسرعة إن فدارك لهين عيد كلام وبرامج كبعدنا عيدا كاسو لما تبدأ يقصارب بدل لما تنكر السنوات بدل وصو وياك من ليس الله يسوق علي وحاي يديك النقطة أنا ما من ضمن ما من كلام ما من كل كلام عيدا ما نوتشوا اللي بقول ولا كشودين هو بيهايستان وريه هايستان بريس بيليه دراويش بيليه كان تروح ولا ضيع بها شيء كوي بكلام قريبا هايستو قصدي لكن ما فكروا والله ورمامك إذا ما دي أرلنا تشوفي أرمى يسكت على يوم دي مادة كما يفكرين هو كذا كلا يمين بالضم من أياله الله هايستا هذا رجال ودريك كسوة نقول شلا وحد لقوش حياة إلا أكوا وإذا ما ضيدي وحد أكوا ومامك يبي وحد لقوت ما يا ومامك يبي سيدا تنسيس عطو دي ايغان بين ما نيرين نبدقلية الله وضو هدين لتوتشين وايو أنه وطلابا مقارنة وحكبت هوستة اللي إلا بابينيا إلا بوتشوكسانيا وأننا قاعدين لها ماملكا إيديك نبضون الله وماملك عيدا مدينة ولا أكلين إذا عيدا مشوغان ولا أكلين إما مشوغان ولا أكلين هين أرهالي كتين وعشور ترهالي كتين وكان ترى إلا قصد ذلك كثير وأبقى سيريسا نوش هذا هذا قرننا هذا الأقشين هديس سيدنا أبو أي أحسن إنسان سجى أي أحسن إنسان مقالة سيدنا الدولة لقى يريو أنه يسقى أي أحسن ما إنه من يرينه من أقبل الدونه سكر دعوة من دونه سيدا يسوع عياسية من أنا رسوا عرمنا وسوا عياسيننا هم كي يستعملوا شدار وسوينا فردك كك عن ورنا
ما إيجان كنا ما نقبل كنا وحنا مرتب dambeyntiina waxgaradkan maanta ka soo qayb galay kulankan dhex maray maamulka gobolka Cayn kan degmada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayay waxgaradka odayaasha ku dhaqan Buuhoodle waxay maamulka u sheegeen in kulan dambe ay isugu noqon doonaan isla markaana kulamo la yeelan doonaan ciidan uu soo jeeday eedeynta gudoomiyaha gobolka Cayn oo sheegay in ciidamo maleeshiyada ka qorayso magaalada Buuhoodle isku soo duuduubo odayaasha dhaqanka ee Buuhoodle ayaa looga fadhiyaa bal jawaabta ka soo celin doonaan maamulka gobolka Cayn cali dhagtar Somali Channel magaalada Buuhoodle